ها anigoo ah gudoomiyaha deegaanka waxaan sheegayaa abaar daran in ay jirto oo in muddo ah oo ilaa 4-5 roob aan roob meeshan jirin waxaan marka leeyahay dadweynaha muslimiinta ah in maaragtay wixii loo heli karo lala soo gaaro isbitaal ma laha meel ma laha waxbarasho meel maaragtay caafimaad ma lahan biyo la'aantu waa ugu daran tahay waxyaalaha noocaas oo dhan markii la isku soo koobo aad iyo aad ay u daran yihiin aynadahaas oo dhanna wax laga hayo lama arko ugu daraanna waxa weeye ugu badnaanta ugu daranna waa biyaha iyo wax la cuno intaba sida u saameysay abaarta deegaanka hadda ka jirta abaarta waxay u saameeyday ilaa midkaan ku afar wax roob laga helin afar xilli roobaad ilaahay xagga ayaan ka sugaynaa hay'adaha oo deeqayaasha markay soo gaaraan deegaankan oo wax ma ka bixiyaan maya ma soo gaaraan waxaan ugu baaqayaa in maaragtay meeshan wax lala soo gaaro dadka dhibaataysan ay uguna horreeyday uguna badan tahay uguna dhibaato iyo dhib badan tahay dhibaatadaas oo abaar ku raagtay ah haddii abaar ay meel ku raagtana waxa walbaaba inay imanayaan cid kasta waa dareemi kartaa waxaan ugu baaqayaa wax alla wixii muslimiinayna wax la soo gaaraan meeshaan ma ka jiraan isbitaal hooyada iyo dhallaanka ama isbitaal si guud u shaqeeya deegaanka maya kama jiraan mid gaara iyo mid kale midna kama jiraan waxaa dadka qofkii jiran gaalkacyo loo dhigaa qof kale meeshada isaga dhimataa deegaanka waxay u jirtaa 160 kilomitir intaas u jirtaa tusaale hooyo foolo qabato waa dhali weyday gaalkacyo loo dhigaa mise ay ku tagaysaa gaalkacyo loo dhigaa mise ku tagaysaa qarashka ku baxa qarashka waxay ku tagtaa 180 ilaa 200 waa baabuur qaata maadaama hadda abaar badan hadda dhacday oo abaarta dheer tahay biyuhu xagee laga helaa deegaanka ka helaa ayna sida baataga ay ka jiraan biyo xaraara ayaa qaydara waxa laga keenaa ilaa lacag 250 230 booyadaha ay ku keenaan jirta qaydara jirta hadda qaydara waxa loo jirtaa 40 kilomitir halka boodna marka meeqa ku timaadaa meeshaan waxay ku timaadaa 240 230 sidaas ku timaadaa bulshada ku dhaqan deegaanka tira ahaan imse gaareen tira ahaan waxay gaarayaan ilaa 1800 oo qoys xilliyo maaragtay dad shakhsiyaadii ay biyo u keeneen sidaas lagu qaybi jiray intaas lagu qaybi jiray dadkii u dhashay deegaankan oo hadda haddii kuwa waxaystay iyo kuwa kale hadda waa ganacsatada dhammaan maxaa ugu baaqaysan hadda bulshada oo deegaankana maya dadka ganacsatada oo deegaanka u dhashay waa ogsoon yihiin dhibaatada jirta wixii wax ka kabi tarayna waa ka kabeen laakiin hay'ad ama maaragtay dad muslimiin oo badan wax ka qaban kara ma ahane qof iyo labo ama se dad waxba kama qaban karaan shakhsi